ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kula wareegay deegaanka Janaale oo fariisin muhiim ah u ahayd maleeshiyada Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ay la wareegeen deegaanka Janaale oo ay laba jiha uga soo dhaqaaqeen ciidanka si taxadar ku jirana uu u socdo howlgalka ay wadaan ciidanka haatana ay socdaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo. Deegaanka Janaale ayaa ka mid ah deegaanada ku ah dhulbeereedka waxaana muddo sanado ah gacanta ku hayay maleeshiyada Al-Shabaab. Kooxda nabadiidka ayaa halkaasi u ahayd fariisin muhiim ah oo ay ka soo galaan dhaqaale fara badan oo dhanka ganacsiga ah kaasoo ay dadka ku nool deegaankaasi ay si xoog ah uga qaadan jireen lacagaha baalda ah ee ay ula baxeen magaca sakawaad. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wada howlgallo maleeshiyaadka Al-Shabaab looga xoreynayaa goobaha ay kaga sugan yihiin degmooyinka iyo deegaanada gobolada dalka. halgamaye guntaday dalkiisa hubka godka saare kayga dafacayo